soo dhawaada maanta iyo barnaamij cusub. Haddaba maanta waxaan kaga hadli doonaa barnaamijka maxaad ka taqaanaa barnaamijka qalbi itma'inna. Waa barnaamij noocee ah? Waa barnaamij gargaar loogu fidinayo dadka danyarta ah ee ku nool wadamada Carabta iyo meelo kale oo ay ka mid tahay Afrika. Barnaamijkan waxaa soo gudbinaya wiil dhalinyaro ah oo u dhashay dalka Imaaraadka Carabta kaasoo lagu magacaabo Ghaith ma ahan magaciisa dhabta ah. Ilaa hadda lama hayo sawirka Ghaith oo si toos ah u soo muuqda. Sidoo kale lama hayo magaciisa dhabta ah. Inta uu barnaamijkan soo gudbinayo ayaa ah ilaa 3 sano, isagoo maraya sanad walba qaar ka mid ah wadamada muslimiinta si uu u caabiyo dadka danyarta ah. Barnaamijkan wuxuu wataa kaamiro soo gudbisa Ghaith oo hawshii gargaarka ah ku jira. Sidoo kale barnaamijkan waxaa laga sii daayaa TV laga leeyahay Imaaraadka, waxaana barnaamijkan ku xiran daawashadiisa malaayiin dad ah oo ku nool daafaha caalamka, haba ugu darnaadeen wadamada Carabta. Barnaamijkan ayaa gaaray qaar ka mid ah dadka danyarta ah, waxaana la arkayaa qaar ka mid ah dadka danyarta oo ay farxad la ilmeynayaan. Sida lagu arkayo shaashadaha, barnaamijka ayaa soo gabagaboobay sanadkan ay culeysyo badan jiraan, ay ugu horeyso dhibaatada coronavirus, iyadoo aanan shaqaynin garoomada diyaaradaha caalamka. Taasi ayaa Ghaith iyo kooxdiisa culeys ku noqotay. Kadib markii ay ku soo laabteen dalka Imaaraadka Carabta, Ghaith iyo kooxdiisa waxaa la geliyey karantiil. Wadanka ugu dambeeya oo ay gargaar ka fidiyaan ayaa noqday Soomaaliya, inkastoo Soomaaliya in muddo ah ku xayirnaayeen sababo ku aadan coronavirus. بيسر قبل رمضان، قبل لا يسكروا الحين، لأن احنا الحين مش عارفين احنا نقدر نطلع ولا ما نقدر نطلع. Ghaith ayaa sanadkan ku tilmaamay sanadkoodii ugu darnaa oo wuxuu yiri waxba idinkama qarinayo, sanadkan wuxuu ahaa sanadkii ugu darnaa dhinaca safarka, dhinaca soo sawirida, dhinaca raadinta xaaladaha sida loo fulinayo, dhinaca badqabka kooxda iyo dhinaca ilaalinta nabadgelyadooda. Inta aan safarkeeni ku jirnay sanadkan waana la xaday, waana la handaday, wadooyinka ayaana laga xirtay. Muuqaalada quruxda badan oo uu soo gudbiyey barnaamijka qalbi itma'inna ayaa ah Ghaith oo balantii u oofinaya dadkii sanadihii hore ku dhaheen nala joog, isagana uu ku yiri mar kale ayaan idin imaanaya. dhabtii Ghaith balantii wuu oofiyey. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك والله راح اسالك بالله، والله راح اسالك العظيم راح افوت، والله راح والله بنفسي والله راح اسالك بالله نجيكي، ما فيش الا اقدم لك والله نجيكي ونفرح معاكي وان شاء الله ننبسط. الله يبارك فيك. شكرا شكرا والله نجيكي. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. نسلم عليكم ونطمن. السلام عليكم. مرحبا. شلونك؟ هذه سيناريو؟ waxyaalaha ugu yaabka badan ee lagu arkay barnaamijkan ayaa ah waxa ay sameysay haweeneydan oo waxay cunugeedii u bixisay Ghaith. Qisada haweeneydan ayay ahayd iyadoo ay awoodi la inay iska bixiso kirada guriga iyo korontada. Ghaith ayay aragtay oo waxay mooday inuu ninkan u yimid sida uu ugu saari lahaa guriga, balse Ghaith ayaa guriga dukumeentigiisa ku wareejiyay
oo wuxuu u gaday guriga oo dhan. أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله dadka qaar ayaa barnaamijkan shaki ka galay, taasoo ah sidee ku suurowday inay kaamirada u qabato dadka iyadoo waadix ah barnaamijkan lagu sheegay inay kaamiryahanada aan la arkayn. balse dadka qaar ayaa taasi ku jawaabay inay sawir-qaadayaashu ku jiraan gaari la socday qeyb. kuwana waxay leeyihiin ayaga iyo dadka danyarta ah way ku heshiiyeen kaamirada. الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله barnaamijka qalbi idma-ina ayaa ah barnaamij gargaar ah sida inoo muuqata, inkastoo dadka qaar barnaamijkan ku tilmaamayaan in dano gaar ah laga leeyahay, balse xaqiiqada alle ayaa هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين